إن شاء الله مرة واحد ميكروفون كل ورشين دونا هذه لها يراهض وهذا ديالكلو من كشرة محمد حسن ويسوي نقول هذا دونا عذر هذا وضنها هذه لها يراهض الله 10 كلا وكترين يا وضرك تنظمه وكحم هاي قفك وحنا ملانا ما أنت كقضي وكقضي محي على يراه محل أبيس وحنا نجوا دكتور محمد جامع هو هنجري رير أوهوس ناي رير على ده كوبنهاجن أول كستو دنمارك هذا كده جنا ما هم مال كستين رير كلها لكن الشغال حق هذه عبارة شرعية marka waxa weeyaan waa dhalinyaradii Denmark wax ku bartay jaamacadda uga baxay haddana Norway uu takhasus ka sameeyay naga jira waxaan rajaynaynaa Ilaahay nabad inuu noogu soo celiyo wax yar baa uga haray hal sano oo haraan rajaynayaa takhasuskii laakiin waa takhaatiirta marka waxa aad u intereseeya wadnaha xanuunada wadnaha oo aasaaska jirkeen waqti badan ma harin la iman oo gala xataa inaan sii hadlo laakiin kusoo dhaw baan leeyahay insha Allah aad baan maadsantahay casuumaadii aad ogolaatay iyo inaad dadka uga faa'iideysay aad baan maadsantahay Dr. Cabdi aad baan ku salaamayaa runtii dadaalka badan oo aad muujiseen dadkii soo qabanqaabiyay aad bay uga mahadsan yihiin iyo dadweynaha reer Copenhagen waqtigu aad buu u yar yahay barnaamijka la yiri ka hadalna runtii waa barnaamij aad u ballaaran caafimaadka marka laga hadlayana cardiology ama qaybta wadnuhu wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu waaweyn uguna takhasusyada ugu ballaaran leh marka 20 daqiiqo baan isku dayayaa inaan ku soo koobo xanuunada wadnaha ku dhaca marka kuwa ugu muhiimsan inkasta oo runtii saacado badan aad fadhideen macluumaad aad u kala duwan oo aad muhiim u wada ah waqti maaragtay kooban aad hesheen sida aad u weelayn kartaan waxa soo dhan runtii ay adkaan karto qof kasto iska daa idinka ardada jaamacadaha dhigata baan casharo noocaas oo saas ugu xiga aan runtii maaragtay ay ku adag tahay marka waan fahmi karayaa laakiin waqtiga iska ciriiriya muhiimadda ay leedahay arrimahani baynu sida uga dhiganaynaa insha Allah waxaan rabaa inaan wadnaha marka laga hadlayo wadnuhu waxa weeyaan waa xubinta waa la wada yaqaanaa runtii waxa weeyaan waa xubnaha ugu muhiimsan ama xubinta ugu muhiimsan haddaan idhaahdo taa laftigeeda waan oran karaa marka laga hadlayo qofka nolosha bini aadamka ah waxa weeyaan qofka jirkeenu wuxuu u baahan yahay macnaha tabartaas waxay ka imanaysaa oxygen-ta aynu neefsano ama hawada aynu qaadano iyo cuntada aynu cunno macnaha labadoodaas oo la isku daray tabarta ka dhalata tabartaas ayaa unug kasta oo jirka ka mid ah macnaha uu ku shaqeeyaa meeshay doonto xubintaas ku taalo marka waxa weeyaan wadnuhu isaga weeye kan wareejiya dhiigga labada arrimood oxygen-ta iyo maaragtay cuntadii ama glucose-tii ama sokortii jirka gaarsiinaya sawirka aad arkaysaan waxaad arkaysaan midabka buluuga ahi waa dhiigii ka yimi jirka oo laga soo maaragtay laga soo oxygen-tu ay ku yar tahay nafaqadiina laga soo maaragtay qaatay wadnaha waxa lagu soo ridayaa wadnuhuna wuxuu gudbinayaa sanbabaduna waxay ku soo celinayaan markay oxygen ku daraan wadnihii wuxuu soo gudbinayaa jirka intiisa kale marka waxa weeye wadnihii waad arkaysaa markii horena isagu ku soo dhacay dhiigii macnaha u baahnaa in la nafaqeeyo ama markii dambena isagu ku soo dhacaya dhiigii nafaqaysnaa oo jirka u soo gudbinayo muhiimadaas uu leeyahay xanuuno badan baa ku dhaca wadnaha xanuunada ku dhaca laba qaybood oo bay u badan yihiin labada qaybood waxa weeyaan waa mid lagu dhasho oo caruurtu iyagoo maaragtay way ku dhashaan midna waxa weeyaan waa mid la qaado waqti nolosha inta la nool yahay ayay timaadaa ta lagu dhashay hadda ka hadli mayno inta badan caruuraha dhulalkan wadamadan horumaray way wax badan baa laga qabtaa wadankeenii iyadoo la ogaan ayaa inta badan waxa weeyaan caruurtu waxay u dhiman jireen isagoo yarba cunugu waa saqiir baa la oran jiray marka ma jirin sabab maaragtay sabab la yiraahdo sababtaas cunugu u dhintay xanuunada aan ka hadlayo hadda waxa weeyaan waa xanuunada ku yimaada maaragtay oo la qaado
xanuunada la qaado waxa weeyaan wadna xanuunku waqtigu maadaama yar yahay waxaan soo diyaarsaday runtii iyo isma kafaynayaan iyo islaasku marka waxaan ku khasbanahay inaan xoogaa boobsiiyo lagana yaabo maaragtay inaanan muhiimadii aan ka lahaa inaan la wada helin laakiin insha allah waxa weeyaan wadnuhu xanuunada ku dhaca wadnaha marka wadnaha iyo xanuun marka labadaas waxa weeyaan waxa macruuf ah oo la isla yaqaan wadna xanuunku inuu keeno geeri degdega dhibaatooyin qofka ku yimaado oo maaragtay tabardaro inuusan shaqooyinkii caadiga ah oo qofku qabsan jiray inuusan qabsan karin dhibaatooyin aad u fara badan xanuunada marka wadnaha ku dhaca waa dhowr nooc qaybta aan isleeyahay haddeer waqtiga kan inaan ka hadlo ay muhiimka ii noqonaysaa waxa weeyaan waa xanuunadan degdega macnaha wadna xanuunka degdega ah oo keeni kara geeri degdeg ah sawir nin wadna haysta haddaad aragtid kaas ige waxa weeye xanuunadan wadnaha ku dhaca waxa keenaya waxa weeyaan wadnaha laftigiisii oo jiraday xididadii wadnaha oo dhuubtay sawirkaas hadda aad u jeegtaan waxa weeyaan waa qof wadnihii laga qabtay wadaduu marayay wadada isagoo maraya ayaa hal mar wadnihii si xanuun aad u badan baa qabtay xanuunkaa badan oo qabtay waxa weeyaan waad dareemi karaysaan xanuunkaa uu hayo haddaan waqti yar gudahood aanu ku helin caawimada uu u baahan yahay waxaa dhici karta inuu noqoto tiisi inay maaragtay qofkaasi sidaa ku dhinto marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qofku haddii uu iska dareemo macnaha da-du way jirtaa maaragtay waxyaabo badan way factors kalaa jira qofku waa dadka familkiisii ama waalidka xanuun ma lahaan jiray waxyaabo badan oo waxaa jira runtii waqtigu oo ciriiri ah aanan ka gaarsiinayn laakiin inuu qofku ogaado ay muhiim tahay haddii wadnaha qofka laga qabto saacadday doonto ha joogto inta badan qofku isagoo hawl markaa gacanta ku haya xanuunkaasi uu raaco cunaha isla markaana gacanta bidixda uu raaco waxaa qofka khasab markaa ku ah inuu dhakhtar la xiriiro qofka la joogaana inuusan qarsan oo yiraahdo ama feer bay haysa ama xagga layga haya ama saas oo kale inuu markaaba dhakhtar la xiriiro 112 baan u malaya Denmark la garaaci jiray 112 ga garaaco oo yiraahdo maaragtay saasa jirta taasi waxay keenaysaa markaa waxayaan in laga baaro sababta loo baariyo waxa weeyaan xanuunka wadnaha ku dhaca oo noocaasi saacado gudahood waxa dhici karta qofku inuu u dhinto marka waxa weeyaan haddii uu wax kale ahaan la wax kale uu noqon karaa wuxuu noqon karaa xataa even waxa weeyaan aasiirka caloosha oo soo kacday oo hunguriga maaragtay cuntada soo raacday waxay noqon karaan lafaha dhabarka oo maaragtay iyaga laftigoodu neerbayaasha iyo ciriir galay waxay noqon karaan muruqyada sababo badan bay noqon karaan laakiin sababaha soo dhami waxa weeyaan in la cadeeyo inay sababtaa tahay iyo in kale baa muhiim ah hadday sababtaa tahay waa la sugi karaa maalmo isbuuc bilo waa la sugi karaa laakiin hadday wadnaha tahay lama sugi karo marka sidaa darteed waxa weeyaan lalana yaabi maayo qofka hadduu yiraahdo maaragtay buustis maarta ayaan maaragtay dhakhtarka ambulasta iyaga markaba waxa weeyaan jawaab degdeg ah bixinaya marka taasi waa muhiim in sidaa la sameeyo waxa weeyaan daweynteedu way fududahay marka macnaha waxa weeyaan daweynteedu marka leeyahay way fududahay waa maxay waxa weeyaan wuxuu ku yimaadaa xididada wadnaha waxaan idhi jirku ayuu wadnuhu wuxuu gaarsiiyaa nafaqada iyo hawadii maaragtay oxygentii wadnaha laftigiisuna wuxuu u baahan yahay isaga laftigiisu inuu helo nafaqo iyo hawo macnaha tabar buu u baahan yahay xididada markaa isaga siiya oo u qaada nafaqadii kuwaas ayaa waxaa ku dhacaya inay xirmaan marka xirankaasi waxa weeyaan siyaabo badan buu ku yimaadaa xirankaa uu xirmay ayaa waxa weeyaan waxaa la sameynayaa in la siiyo dawooyin jilciya oo meesha fura si waxa loo furaa macnaha waxa weeyaan in qalliin yar oo fudud loo sameeyo qalliin yar oo fudud markaan leeyahay waxa weeye hadda ka hor bay dhacday qof intuu dhakhtar tegay wadnaha laga qabtay loo sheegay oo la yiri wadnihii waxa weeyaan waxaad u baahan tahay in qalliin lagugu sameeyo
wuxuu yidhi anigoo soconayaan idiin imi oo lugahayga ku socda ma haddaad qalliin igu sameynaysaan marka waxaa la yidhi maya saas weeye khatartaasay leedahay marka waa in xinjirta meesha ku xiran laga saaraa sidaa keliya unbaad ku badbaadi kartaa wuu diiday markuu diiday waxaa la warqadda saxiix inaanu information ku siinay adiguna aad naftaada maaragtay mas-uul ka tahay warqaddii buu saxiixay gurigiisii buu aaday subaxii dambena waxa weeyaan tiisii bay noqotay marka waxa weeyaan dabcan waxa weeyaan tiisi way gashay waa arrin qoran oo ilaahay maaragtay qadaray in qof naf kasta waqti bay leedahay laakiin dadaalka iyo waxqabadka iyo maaragtay waa arrin maaragtay diinteenu ina amrayso qofku inuu naftiisa la dadaalo wixii markaa wax laga qaban kari waayo waa meesheeda laakiin intii wax laga qaban karo laga qabto